saabiriin goortay qabrigii timid waxay xilligaasi bilowday wiilkeeda in la hadasho waxayna tiri wiilkaygii waan kuu sheegay inaadna gabadhaasi guursan laakiin hadalkii waa maqli weysay oga use maanta waxa aan ka faa'iiday maanta aniga iyo weliba wiilkaagiiba guriga ayay naga soo saartay hadda xagge ayaan aadnaa wiilkaygiiow assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibadan u jecelnahayow walaalkiina barqada maanta inay wada qiso aad u xanuun badan ka horse intaana bilaabin nagow inaad muuqaalkan like saartid janalka dadka cusubtaana subscribe tartaan laga hilmaamin haddii intaasaa samaysana waa sharfan tahay aan muuqaalkeena gudaha u galno qisadeenna waxay ka dhacday tuulo yar ayaa waxaa ku nooleed haweeney waayeela taasoo lagu magacaabi jiray nasriin bibi iyo weliba wiilkeeda qura ay dhashay kaas oo lagu magacaabay khaalid nasriin ninkeedu waxa uu geeriyooday sannado badan ka hor tan iyo markaas wixii ka dambeeyey wiilkeeda ayay nolosha ula hardantay ilaa ugu dambayntii wiilkeeda ay ka soo saartay wiil adag khaalid wuxuu hadda noqday nin dhallinyaro ah maalinkii oo dhanna waa uu shaqeeyaa maqribkii markii la gaarana si toos ayuu guri isaga soo laabtaa waayo wuxuu og yahay inay hooyadiis ay sugayso nasriin ayada laftirkeeda wiilkeeda si fiican ay daryeeli jirtay haddii ay noqoto inay cunto u diyaariso in sidaasoo kale daalkii maalinka ay la qaybsato iyada oo la sheekaysta wiilkeedana waqti qurux badan la qaadato xilligaas nasriin waxay aaminsanayd noloshu inkastoo noloshu xilligaas u fudud haddana si xasilooni ay ku noolaayeen waxay dareemaysay intay wiilkeeda u joogaba inaysan waxba ka maqnayn laakiinse wax walba sidii la rabo mararka qaar kuma socdaan waxaan ka wadaa wakhtiga ayaa si tartiiba waxa u bilaabay inuu isbeddelo khaalid marka uu shaqada had jeer ka yimaado wuxuu hooyadiis wakhti la qaadan jiray oo wakhti ayuu si jiroo la sheekaysan jiray laakiin maalmihii xiga ninkii waxa uu bilaabay inuu moobilkiisa ku mashquulo wakhtiga ugu badanna uu moobilka la qaato nasriin way aragtay arrinkani laakiinse xilligaas way isaga yar aamustay iyadoo malaynaysa in wiilkeeda uu daalan yahay iyo in weliba arrimo kale isaga haystaan saasay tahana waxay fiirinaysay meeshii xaaladiisu gaarto ilaa laga gaara maalin moobilkaas oo beddela ninkan noloshiisa kadib markii ninkani baraha bulshada uu ka bartay gabadhaasoo lagu magacaabay saariya markii hore hadalku waxa uu ku bilowday weedha yar inay wadaagaan iyo weliba hadalla yaryaroo kooban kadib waxay baashu tagtay in lambarada la iswadaarsado ama lambarada la iska qaato ilaa ugu dambayntii ay gaartay habeen iyo weliba dharaar in la sheekaysto khaalid waxa uu ku dhacay dabin ah gabadha inuu jeceyl xandhaaf u qaaday saariya weligeed foolka fool uma uusan arag sawir unba uu ka arkay sidaasoo tahana qalbigiisa ninkan waa lala wareegay oo jeceyl xandhaafa ayaa qalbigiisa buuxiyey khaalid ma ogeen in wejigan gadaashiisa ay ku qarsoon tahay xaqiiqo noloshiisa beddeli doona galab galbaha ka mid a khaalid iyo weliba hooyadiisa nasriin ayaa waxa ay fadhiyeen barxadda hore ee guriga xilligaasna way iska nasanayeen nasriin ayaana wiilkeeda xilligaasi go'aansatay inay la hadasho waxayna ku tiri wiilkaygiyow hadda waad weynaata waxaana rabaa inaad guursatid sababta waxaan doonayaa ilmahan ayay u noqday inaan arko sidaa darteedna wiilkaygiyow waxaan kaa rabaa inaad guursatid wiilkii markuu intaasi maqla u aamusay hooyadii hadalkiisii wadata ayaana xilligaas waxay ugu darta waxay ku tiri wiilkaygiyow gabadha aan doonay inaan ku guuriyo waxaan doonayaa inay dulqaadan karto noloshaan fudud aan ku noolnahay sidaasoo kale wax cabashaa inaysan keenayn gurigeennana ay hore u sii dhisto maahane aysan wax dhibaata aysan ku soo kordhin xasinoolin aan ku wada noolaanno intaas markay afkeeda ka soo baxday maamadii khaalid ayaa isla markiiba soo booday isagoo hooyadiisu jawaabana wuxuu yidhi hooye macaan hawalwelin aniga gabar hore ayaaba u doortay iyada ayaana doonaya inaan guursado micnaha qof kale ima cadda nasriin markay intaasi maqasho waa idhahday waxayna ku tiri wiilkaygiyow in qof la jeclaado waa sax laakiinse in qof kala garto waa muhiim micnaha in la fahmo marka sidaa darteed anigu waxaan kugula tilahay go'aanka inaad aad uga fakarto ka hor intaadna ku dhaqaaqin laakiin khaalid xilligaas waa uu ku adkaystay wuxuuna ku yidhi hooye aniga doorashadeedii keliya ayaan rabaa micnaha waan ku kalsoonahay marka sidaa darteed aniga gabadhaas ayaa i cad nasriin waxay isku dayday marar badan inay wiilkeeda la hadasho laakiinse khaalid xilligaas ma uusan maqlin ilaa ugu dambayntii hooyadiisa ay ogolaatay macnaha ku khasbanaatay in wiilkeed ay raacdo iyadoo ka talinaysa farxaddiisa maadaama wax kale aysan haysan si kastaba haatee wakhtigaas waa laga gudbay ilaa la gaaray maalin maamada guriga ayay hor fadhiisay kadibna albaabka ayaa lasoo garaacay goorta sidaas albaabka u furtaba waxay halkaasi ku haratay wax aysan marnaba xitaa indheeda soo qaban waxay halkaasi ku haratay wiilkeeda khaalid oo xilligaas la socda gabar labisan dharkaasoo ay wadatay gabadhuna wuxuu ahay dharka arooska nasriin xilligaas waa ay naxday laakiin waa iska aamustay khaalid ayaana si tartiib waxa uu yidhi hooyo tani waa saariya
waa gabadhii aan kuu soo sheegay inaan doonay inaan guursado, haddana waan soo guursaday. Nasriin si fiican ayay xilligaas gabadhii Saariya u eegtay. Su'aalo badan ayaana qalbigeeda ka guuxayay, laakiinse xilligaas waxba kama aysan oran. Kadibna dhinac ayay uga wareegtay, ilaa labadoodii dhankaasii guriga ay u sii dhaqaaqeen. Dhan kale tuuladii waxaaba ku faaftay in ninkii Khaalid ahay uu gabar kastoo micnaha u guursaday, isagoo xitaa wax aroos iyo waxaasba aanba samaysan. Si kastaba ha ahaatee, aan u soo laabanno habeenkii Khaalid iyo weliba Saariya waqti dheer ay qaateen oo wada sheekaysteen. Waa laga gudbay, farxad ayayna ku noolaadeen. Oo waxaan ka hadlayaa Saariya iyo weliba Khaalid xilligii u horreeyay ninkani xaajiyadiisa wuxuu arkay inay dabeecad wanaagsan la soo baxayso, laakiinse ma uusan ogeyn dhagar weyn inay u qarsoon tahay, sidaasoo kalena ay wax qarinayso. Laakiinse gabadhii aroosadda ee Saariya waxay markaan ila soo baxday wejigeeda dhabta ahay. Maxaan ka wadaa, mar kasta uu Khaalid shaqadiisa isaga baxo, waxay bilowday gabadhii inay saacado badan la qaadato moobilkeeda, micnaha aan qof aan la aqoon halkaasi waqti ay kula qaadato iyadoo iskala qoslaysa. Nasriin maro badan ayay aragtay, wayna aamin weysa gabadhan, iyadoo xilligaas aad uga naxday wiilkeeda iyo weliba waxa ay naagtaani la doonayso. Maalin ayayna ku dhiiratay inay weydiiso gabadhani waxa ka khaldan iyo weliba qofkay had jeer la hadasho. Saariya markii intaasi maqasho aad bay uga carootay, waxayna xilligaas ku tiri, islaan yahay, shaqadaada ma taqaanid miya? Waxaan adi wax lagu dirsada maahan. Qofka aan rabo ayaana doonaya inaan la hadlo, marka buuqa igala qaad. Tan kale adiga maxaa kaa galay? Nasriin xilligaas markii ay maqasho way aamini weyse, kadibna waxay ku tiri, gabadhaydiyey, ka warran arrinkan haddii Khaalid uu ogaado. Saariya ayaana xilligaas si qoosal leh oo kulul ku tiri, Khaalid hadda aniga ayuu ii xidhan yahay, adiga waxba kuuma xidhnaa, micnaha aniga ayaa kaala wareegay. Marka hadalkaadoo idilma maqlaayo, marka waxaan kuu sheegay wax dantaada, taasoo ah inaad iska aamustid, taas ayaana kuu wanaagsan. Nasriin xilligaas wadnihi ayaa qac yidhi, wayna aamini weysay. Galabnimadii markii la gaadhay, Khaalidna uu soo laabtay. Saariya ayaa ag fadhiisatay, iyadoo xilligaas wejigeeda murugo ka muuqdo. Khaalid waxa uu weydiiyey waxa ku dhacay Saariya, waxayna xilligaas ku tiri, Khaalid waxaan rabaa inaan wax kuu sheego, hooyada dhaqankeeda ma fiicna, mar walba erayo xun ayay igu tidhaahdaa, sidaa darteed micnaha kama helin. Khaalid wuu ka yara aamusay, inkasta uu sheekada haddana si fiican u fahmin. Saariya ayaana xilligaasi bilowday inay marar badan ay kala hadasho arrinkan, iyadoo had jeer ninkani ay u sheegi jirtay inaysan hooyadiis aysan ka helin. Xilligaasi waxay u sheegtay in ayad mar walba ay dulqaadanayso, laakiin hadda dulqaadkii uu ka dhammaaday. Khaalid wuu ku jahwareeray xaaladda inuu dejiyo, sababtoo hooyadiis iyo weliba xaaskiisa. Wuxuu ka cabsanayay khilaafkan haddii sidan uu ku sii socdo in faraha uu ka bixi doono. Maalin walba Saariya ninkii waxay dhagaha ugu shubi jirtay, ugu cataawi jirtay arrimo cusub, una sheegi jirtay inaysan hooyadiis ay ka helin, had jeerna hooyadu ay ku qayliso, ilaa ugu dambayntii shaki bay ninkii ku abuurtay. Khaalid markuu arrinkan marar badan uu ku soo laalaabtay, weliba cabashada badan ayaa dhanka xaaskiisa ka imaanaysa, isaga uu dul qaadan waayay. Kadibna maalin ayuu hooyadu yimid si uu bal arrinkan uga hadlo, maadaama xaaskiis marar badan ay soo dacwootay. Maalin ayuu noo yimid, wuxuuna ku yidhi, hooyo macaan, maxaa sida xun aad ula dhaqmaysaa gacalisadayda ama xaajiyadayda? Hooyo macaan, maxaad ka rabtaa? Nasriin ayaana xilligaas waxay ku tiri, wiilkaygiyo wax ma ogid, xaaskan xaas wanaagsan ma ahan. Waxayna xilligaas ku tiri, marar badan waxaa arka wiilkaygiyo iyadoo mobil ku mashquulsan, weliba qof aan la aqoon ay la hadlayso. Marka wiilkaygiyow, xaajiyaddaanu ma ahana begin. Khaalid ayaana hadalka ka soo dhex galay oo ka kala gooyay, wuxuuna ku yidhi, hooyo macaan jooji, xaaskayga aniga 100% waan ku kalsoonahay, marka waxyaabahaas ay la imaan. Nasriin ayaana xilligaas ilmo ku soo istaagtay, waxayna ku tiri, wiilkaygiyo xaqiiqda ayaan kuu sheegayaa, ee warkayga waa inaad dhuuxdaa. Laakiin isaga gaashaanka iyo u daruuray, mana dhegaysan, waa uuna ka dhaqaaqay. Si kastaba haatee, cabashadii Saariyan ayadana barnaamo istaagin. Biluhu waa isgureen, oo bisha ku xigtay ay isku dhiibtay, ilaa ugu dambayntii gabadhii uur ay qaaday, 8 biloodna ay u buuxsantay, ilaa bishii 9aadna loogu daraba. Nasriin xilligaas waxay u malaynaysay in wax walba ay hagaagi doonaan, oo haddana maadaama gabadhan haddii ay dhasho, in qoyska uu sida hore u farxad heli doono, inaha gabadhan ay soo hagaagi doonto. Laakiin taasi ma haysan dhicin. Gabadhii yarta ee Saariya markii ay dhashay, wiil ayay dhashay. Xilligaas qoyska aad bay ugu farxeen, haba ugu horreysa maama Nasriin iyo weliba sidaasoo kale wiilkeeda. Xitaa aan ku darno gabadha wiilkaani dhashay, laakiin farxaddaasi ma aysan noqon mid sii waarta.
Nasir markaan ka hadlayn aad waxay ugu mashquushay wiilkan ayeeyaha ay u tahay hajar maray xambaarto maray dhinac dhigto ayay wakhtigeeda dhanba ku dhammaysay halka saari ay teleftirkeedana mobilkeeda aad ugu mashquulshan tahay wiilkeeda had jeer wuu iska soo shaqay jiray oo khaalid ahay laakiinse arrinka sidaasi kuma uusan joogsane ee maalin gurigii waxaa soo gaartay arrin xanuun badan guriga waxaan ka hadlayaa Nasriin arrinkaasna wax kala maahane ninkii khaalid ah waxaa lasoo sheegay shil baabuur inuu ku geeriyooday weliba isagoo xilligaas meydkiisa la wadana maamadii guriga loogu keenay aad bay uga naxday aad bayna uga murugootay halka wiilahaysata maanta inuu sidaan uga geeriyoodo sidaasoo kale saari ay laftirkeeda way oysay laakiinse ooyinteedu ma aysan ahayn wax dhab ah ee waxaan dhihi karnaa waxay ahayd ilmo yaxaas si kastaba ahaatee khaalid markii laiska soo aasay saariya waxa ay ku noqotay nolosheedii hore waxayna bilowdaba tan midan mid kasii hore inay maamadii kula dhaqanto maalin ayay Nasriin u timid kadibna waxay ku tiri dhegayso duqyahay hadii micnaha waabi dhibtaba marka sidaa darteed agabkaada guriga ku yaala iga soo aruurso xilligaas Nasriin way aamini weyse waxayna ku tiri maxaa ka wada agabkaa soo aruurso markaasay tiri dhegayso aniga waxaan kuu sheegayaa waxa meesha ka jira waxaan kaaga baahanaa alaabtaad yarta gurigan kuu taalla inaad micnaha iga aruursatid oo gurigan aad iga baxdid xilligaas ayayna maamadii waxay tiri oo xaggeen aadayaa gabadhaydii saari ayaana xilligaas cunugeed yarkaa soo qabatay dushana ka saartay waxayna ku tiri kan xitaa qaado micnaha maba rabuubi dhibaba Nasriin xilligaas ilmada ayaa ka daadata kana qubatay xilligaas ayayna waxa ay mar kale gabadhii ku tiri gurigan haddiin kusii arko ogow wixin ku dhex adigu ayaan isku dhigay xilligaas Nasriin maadaama horta cunuga yarka ay gacanta ku dhigto aad bay ugu farxday haddana xilligaasi ma aysan aqoonin meelay aado kadibna ilmaheedii yarka ayay iska soo qaadatay dee weliba dhar yaroo meeshuu yiilay waxayna xilligaas bilowday inay ka fikirto meeshay aadi laheyd maadaama xilligaas aysan aqoonin meelay aado ugu dambayntiina waxaa ku soo dhacay iskuul dowladeed oo agteeda ku yiilay waxayna bilowday iskuulkaas dhinac inay ka seexato maadaama xilligaasi xaaladdu aysan wanaagsaneen si kastaba ahaatee waxa ay bilowday inay wiilkii maamadii ay la tacaadusho micnaha ay aad ula dadaasho ilaa ugu dambayntii maalin ay soo booqatay wiilkeeda qabrigiisa xilligaas ayayna bilowday inay meeshii ku halacashay waxayna ku tiri xilligaas wiilkaygiiyo aniga waxaan ku dhahay gabadhan ha guursan laakiin adiga hadalkayga maadna maqlin maantana guriga ayay ka soo saartay haddan heer waxaan joogaa aan seexdo dugsi dowlad hoostiisa anigoo xitaa waxbahayn tan kalooy dheerna waxay tahay ilmihiina aniga ayay dushay ka soo saartay maamadii ilmada ka qubanaysa ayaana meeshii ka soo tagtay iskuulkeedana dib isaga soo laabatay laakiin aan u soo laabanno iskuulkaas horta marka hore waxaa ka shaqay jiray macallin lagu magacaabo Naasir wuxuuna arka maamadan oo hada jeer ilmaha wadataa oo weliba waa yeesha cunug yariiskaa wadataa waa uuna la danqaday ee mar walba iskuulkan imaanaysa kadibna marka uu wareystay sheekadeedana uga sheekaysay aad buu ula danqaday Naasir ayaana xilligaas waxa uu ku yidhi sababka guriga ayaan keenayaa iyadana xilligaas way aqbashay horta ninkan Naasir ah waxaynan kaga sheekeeyo ninka horta wuxuu qabaa gabar la yidhaahdo Maariya in muddana way isqabaan wax aruurna iskuma aysan dhalin marka sidaa darteed markuu arka maamadan iyo weliba cunuga yarka ay wadato cunuga sidaan u yar wuxuuba goostaba ninkan gurigiisa inuu geysto xaaskiisana cunugan yarka iyada ay karsato aad bayna arrinkani loogu farxay maariya iyada laftarkeeda waa ay soo dhoweysay maadaama wax ilmo ay hore uusan u dhalin waxayna xilligaasi xaqsatay cunugan boos weyn u buuxi karo si kastaba ahaatee wiilkii waxaa loo bixiyey cali halkaas ayuuna ku soo koray maariya iyo naasirna waxay u daryeeleen si wacan ilaa da'diisu ay gaartay 6 sano xilligaasna waxa uu bilaabay dugsi maadaama cunugaada da'diisa ay soo kortay si kastaba ahaatee dugsi waa uu dhammeeyey iskuul ayuuna u gudbay sannado kadibna wiilkii waxbarashadii waa uu ka soo faatahaystay wuxuuna hadda noqday nin aqoon leh maalin ayayna maamadii Nasriin wiilkii intay kaxaysa waxay geysay xabaalihii aabihiis waxayna xilligaa u sheegtay in ninka halkani ku duugan uu yahay aabihiis cali ayaana xilligaas la yaab wuxuuna ku yidhi war hooye macaan balku weydiiye maxaa ka wada aabbaha ayaan halkan ku duugan haddaba haddii ninkaan halkan ku dugan aabbahe uu yahay aan ku weydiiye naasirna waa iyou noo ahay micnaha naasir haguun aabbihiga noqday xilligaas ayay Nasriina bilowday wax walba inay wiilka uga sheekayso sheekadii oodan iyo weliba sababta aabbaha u geeriyooday sidoo kale hooyadiisa sida guriga uga soo saartay
yaana kaaga reeban. Macalin Naasir sida isaga u caawiyey una badbaadiyey Cali markuu intaasi maqal aad buu ugu farxay. Kadibna guriga ayuu ku soo laabtay. Naasir iyo Maariya iyuuna xilligaas u mahadceliyey, wuxuuna uga mahadceliyey naxariistoodii iyo weliba garab istaaggii. Xilligaana waxa ay dhaheen, maya wiilkaygii waan isku leenahay. Si kastaba ahaatee, Nasriin inkastoo hadda ay sii duqowday, haddana xanuun ayaa ku soo kordhay. Maamadii wixii xanuunkeediiba lala tacaalo. Ugu dambayntii xanuunkii waa ay ku tagtay. Minaha sidaas ayay ku geeriyootay, iyadoo wiilkeeda Nasriin halkaasi ku macsalaamaysay. Laakiin xilligaas ay geeriyootay, ninka Cali waxa uu dareemay in tiir weyn halkaasi ka baxay, qayb ka mida noloshiisa inay halkaas ka baxday. Maadaama iyadan ay ahayd, ayay si fiican wiilka u soo daryeeshay oo la soo hardanto dhibaatooyin badan la soo martay. Si kastaba haatee, ninka Cali ah horta waa uu soo koray, wuxuuna maalin go'aansaday bal inuu horta raadiyo hooyadiisa si uu bal u ogaado xaaladdeeda meesha ay ku dambayso. Kadibna gurigii horta markii hore iyada ugu tilmaantay ayuu bilaabay inuu ku baadigoobo. Waqti dheerse kuma aysan qaadan. Ugu dambayntii waxa uu tegay gurigii, laakiin xilligaas waxaaba loo sheegaba gurigan in gabadhii Saariya deganeed ay ka guurtay. Ka guurid kaliya ma ahane ee gurigan ay iska iibisay, waxaana sidaas oo kale loogu sii daraba lacagtii gurigaas ay ka iibisaba in nin uu kala baxsaday, minaha nin ay jecleed. Ninkii ay jecleed markuu lacagtaas kala baxsana, ayada ugu dambayntii waa ay waalatay. Waalidaas darteedna waxaa la geeyey isbitaalka dadka dhimarka weliba xanuunsan lagu daaweeyo. Isbitaalkaas ayayna ku jirtaa. Cali markuu intaasi maqal aad buu uga nahay. Kadibna waxa uu bilaabay inuu baadigoobo ilaa ugu dambayntii isbitaalkii loo sheegay. Wuxuuna halkaasi ugu tegay arrin aad u naxdin badan oo weliba marnaba isaga ku soo dhicin. Arrinkaasna waxa kale maahane wuxuu arkay hooyadiis oo ay ka muuqato duruuf. Xilligaas ninkii Cali yahay ilinta ayaa ku soo istaagtay, laakiin xilligaas waxaada lama uusan dhihin. Isagoo aad u murugaysan ayuuna meeshii ka soo laabtay, ilaa ugu dambayntii uu guri ku soo laabtay oo wuxuu yimid Naasir iyo weliba Maariya. Waxayna xilligaasi arkeen waxa ku dhacaya weliba inuu aad u murugaysan yahay. Wuxuuna xilligaas u bilaabay inuu wax walba u sheego iyo weliba waxa uu ku soo arko hooyadiisa. Iyaga ayaana xilligaas waxay ku dhaheen, wiilkaygii howlwadin, annaka ayaan kuu joognaa. Hada jeerna aniga ayaa waxaan nahay waalidiintaada. Cali markuu intaasi maqlay aad buu ugu farxay. Si kastaba ahaatee asxaabay, sheekadeenna horta halkaas ayay ku soo gabagabowday. Haddaba maxay tahay cajarka sheekadan aan ka baran karno? Cajarka aan ka baran karno waxay tahay mararka qaar go'aanka khaldan aad qaadato ayaa waxa uu ku horseedi karaa qoomamo iyo weliba dhibaato, yaan xitaa kaaga rabin geeri ayuu ku horseedi karaa. Marka sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaan had jeer aan maqalno hadalka ay waalidiinteen noo sheegaan, sababtoo waalidiinteed ayaga ayaa wax badan ka og, way kaa waa aragna badan yihiin. Marka sidaa darteed waxaa laga baahan yahay taladooda inaad dhagaysatid. bal adu kala turkeenani weydiiyo cashir nooce ayaa sheekadan inkaga baxay. bal horta fikirkiina koontiga nagula wadaaga. si aad sheekadan u aragtiinna bal koontiga qaybta hoose nagula wadaaga. naga hubiya muuqaalkeena like saartiin, janalka dadka cusubtaana subscribe jarta naga ilmaamin. waa walaalkiin barqadoyni leh. waxaan ku kulmi doonaa qisadan qisada ku xigta hadduu ilaah yiraahdo. waa walaalkiin barqadoyni leh. sidaas iyo amaana allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.